si walba xilli dambe u tahay saacaddu marna maskaxdaada kuma siinayso inaad ka seexato kulankan natiijadiisa inaad u soo gudbiso dad badan oo ciyaaraha daawaday kuwa ku riyaaqay bandhigii cajiibka ahaa ee samaysa Barcelona kulanka loo yaqaan El Clasico. Barcelona ayaa ku barbartaa kooxda cadcadka oo joogta garoonkeeda. Madrid ayaana ka sheekeyn doonta caawa waxa ku qabsada garoonka Santiago Bernabeu. Cid meel ku sheegtay ayaa la waayay xidigii waaweyn ay wateen waxaana buug iyo qalin u soo qaatay xidigii daadi yaraa La Masia oo hogaaminaya waayeel ku dhashay Warsaw iyo Roberto Lewandowski. Real ayaa qaybtii koowaad ka adkaan weysay inay iska ilaaliso kubadda offside-ka. Mbembe ayaana magaciisa loo bedelay Kylian Offside ama tasallul qaybtii koowaad taa uu sameeyay inuu galo 6 kubado offside ah. qaybtii koowaad cadcadka u suurageli weysay inay gool dhaliyaan maadaama garoonkooda taageerayaashooda ay joogeen. Barca ayaa qaybtii labaad u soo gashay in ciyaartaba markaa ay bilaabato kale ayaa wejiga u bedelatay kooxda Madrid. Goolalna ayay sidii roobka shabaqooda ugu shubeen daqiiqada isu dhow. Roberto Lewandowski 2 gool cajiib ah ka dhaliyay. 2 gool ayaana ka dhignaa inuu ka dhaliyay Real goolkiisii 10aad 15 kulan oo ka hor yimid kooxda cadcadka. Roberto ayaana Real ka dhaliyay xilli ciyaareedkan 14 gool halka isku dar ay dhaliyeen Mbembe, Vini, Rodrigo 14 gool. Madrid ayaa badisay 4 kulan ugu dambeysay wajahday Barcelona tartamada oo dhan waxayna fursad u haysteen inay gaaraan 5 guulood oo xiriir El Clasico markii ugu horeysay muddo 59 sano ah. Laakiin Hansi Flick sheekada waa u diiday. Macalinka aan qoslin ayaana bandhigiisii awoodiisa ku soo bandhigay isagoo ka hortagay Carlo Ancelotti. Tan 2020 Barcelona waxaa laga beriyay 10 ka mid ah 14 kulan ee wajahday Madrid tartamada oo dhan. Real ayaa badisay 4 ka mid ah 5 kulan ugu dambeysay gurigooda kula ciyaareen Barcelona horyaalka La Liga. Madrid ayaa hadda 42 kulan xiriir ah laga badin La Ligaha laakiin caawa sheekadaasi waa la diiday inay barbarayaan rikoorkii dheeraa ee guuldar la'aanta taariikhda horyaalka. Barcelona ayaa hor u sameysay Abriil 2017 ilaa May 2018. Dhammaan weerarka Barcelona ayaa ku baashaalay Madrid goolashana qaybsaday. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Yamal ayaa noqday xidigii ugu daadeeraa taariikhda ee El Clasico gool ka dhaliya xilli da'diisu ay tahay 17 sano iyo 106 cisho. Hansi Flick Barcelona hogaamiyay 13 kulan isagoo kooxdiisu ay dhalisay 43 gool waana macallin lagu yaqaano dhalinta goolasha tirada badan aan xadka lahayn. Barcelona cusub ayaa caawa dunidu aragtay cabsi xooggan ayaa geli karta dhammaan kooxaha kala duwan ee qaaradda Yurub markay arkeen daa'ir kubadda u sharaxaya sidii xidigii hore ee Barcelona Xavi, Iniesta iyo Messi iyo xidiga kale soo maray kooxda Blaugrana. Kulliyadda La Masia ayaana noqonaysa waqtigan kulliyihii ka soo baxayaan ciyaartooy markasta dhibaato u geysan kara kooxda cadcadka si walba ay suuqa u geliyaan lacag fara badan ayna u keenaan ciyaartooy waaweyn. Madrid goolahooda Courtois ayaa maqnaa taa oo ka dhigneed inuu caawa nasiib ku lahaa inuusan joogin xasuuqa ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu. Hansi Flick ayaana kala furfuray Carlo Ancelotti iyo wiilashiisa malaayiinta lacagta ku xisaabtama. Mbembe ayaana caawa daris la noqday kubadda loo yaqaan offside-ka in shabaqa iyo in ciyaartooyda difaaca mar walba isaga uu ka horeeyo. Waxaan daawanay ciyaar xiiso badan kulan qurux badnaa kulan Barcelona qaybtii labaad sidee rabtay ka yeeshatay kooxda Real Madrid. Habeenkii Barcelona habeenkii taageerayaasha Barca oo kulmadii ugu dambeeyay Eli Caro meel la fadhiyay laakiin caawada soo dunida Barcelona inay dib u soo laabatay cid walbana waqtigan ee meel iska dhigi karto. Gerard Piqué ayaa kulankan maanta ku saadaaliyay 4 gool iyo waxba sidaa ayaa dhacday. Yamal ayaa sheegay in awood badan yihiin wax walbana ku sameyn karaan Madrid sidiina waa ay ka dhabeeyeen. Barca ay sheekadu tacaw hambalyo dhammaan taageerayaasha Barcelona.